bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee daawadayaal halkan idinkugu soo gudbi doonana waxaa ka mid noqonaya al-shabaab waxay soo bandhigeen laba gaari oo nooca dagaalka oo ay ku qabsadeen dagaalkii dhawaan ay ku soo qaadeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. haddaba al-shabaab waxay weeraro iyo sidoo kaleba qaraxyo ka geysanayaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, weliba waxay ku furanayaan hub iyo sidoo kaleba gaadiidkii ay lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. warayaan daawadayaal idinkageena maxaa xilligan ugu wacan in ay soo laba kacleyso al-shabaabtii Muqdisho laga saaray xilligii uu Sheekh Axmed dalka madaxweyne ka ahaa. falaqeyn ayaa daawadayaal ku sameyn doona xasan sheekh maxamuud. arrintan waxa uu ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin. madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lagu dhaleeceynaya qaabka istiraatiijiyadeed ee uu wajahay dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab. sidoo kale al-shabaab waxa ay soo bandhigtay qorsheeda ku aadan weeraro kale oo ka geysato magaalada caasimadda ee Muqdisho. falaqeyn ayaa daawadayaal ku sameyn doona umuurtaasi oo idil. ha yeeshee waxaa kaa dalbanaya oon kaa codsanaya in muuqaalkan laag saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furanaya gambalaalkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawada waxa aad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. kooxda al-shabaab oo dhawaan weeraro iyo sidoo kaleba qaraxyo ku soo qaaday magaalada caasimadda Muqdisho, kuwaas oo argagax iyo uurku taalaba ku abuuray bulshada deegaanka, ayaa waxa ay soo bandhigeen laba gaari oo weliba nooca dagaalka ah oo ay ku qabsadeen dagaalkii ama weeraradii ay dhawaan ku soo qaadeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. al-shabaab ayaa weerar iyo sidoo kaleba qaraxyo waxay ku qaadeen dhawaan degmada Kaxda, gaar ahaan saldhigga degmada iyo sidoo kaleba xaafadda Daarusalaam ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir. wararka aanu helino waxay sheegayaan in al-shabaab iminka ay qorsheynayaan inay weeraro kale ku soo qaadaan caasimadda, balse hay-adaha ammaanka ayaa iminka waxay u muuqdaan kuwo hurdadii ka kacay oo weliba feejigan sidii ay isaga dhicin lahaayeen weerarada ka imaanaya dhanka al-shabaab. haddaynu markaan eegno waxay soo bandhigeen gawaaridan ay ku qabsadeen dagaalkii ay ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. labadan gaari oo u muuqda kuwa duuga isla markaana burbursan ayaa waxay al-shabaab ku soo bandhigtay barta ay ku leedahay baraha bulshada, gaar ahaan Facebook. ayaa sawiradan si weyn loogu falaqeynayay dadyoga Soomaaliyeed dal iyo dibad intaba. waxay dhaleeceynayeen dowladda uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, taas oo lagu dhaleeceynayay in ay keeni weysay qaab istiraatiijiyadeed oo saxan oo lagula dagaalgalayo kooxda al-shabaab oo dalka laga saaray xilligii uu madaxweynaha dalka ka ahaa Sheekh Axmed. al-shabaab iyadoo la joogo sanada cusub 2022 ayay weeraro iyo sidoo kaleba qaraxyo ku soo qaadaysaa caasimadda, weliba waxay furanaysaa hubkii iyo sidoo kaleba gabaaridii dagaalka ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dadka u dhunduleela arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in arrintan ay tahay mid nasiib daro ah. weliba waxa ay sheegayaan oo ay arrintan ku eedeynayaan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, kaas oo intii uu joogay villa Soomaaliya aan dagaal sax ah lala gelin kooxda al-shabaab, kuwaas oo ku dhuumaaleysanaya caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. al-shabaab iminka waxay qorsheynayaan ama markaasiba ay shaaciyeenba qorsheeda xiga weeraradii Muqdisho. warbaahinta taageerta kooxda al-shabaab ayaa baahisay waraysiga nin sheegtay gudoomiyaha al-shabaab u qaabilsan magaalada caasimadda ee Muqdisho, kaas oo lagu magacaabo Sheekh Muuse Cabdi Caraale, wuxuuna ka hadlay weeraradii ay ka fuliyeen degmada Kaxda iyo sidoo kaleba deegaanka Daarusalaam. waxa uu sheegay in ay si joogto ah uga howlgalaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, balse weerarkii habeen hore uu ahaa mid ay aad uga soo shaqeeyeen isla markaana u dhacay sidii ay u qorsheeyeen sida uu hadalkiisa u dhigay. sidoo kale Muuse Caraale ayaa ku goodiyay in ay soo noqon doonaan weerarada ay ka geysanayaan Muqdisho, isagoo sheegay in ay beegsan doonaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa shisheeyaha oo uu kala jeedo AMISOM. weeraradii xalay oo kale way soo noqon doonaan,
go-aankeenu waa in Soomaaliya aysan ka hirgelin qorshayaasha shisheeyaha, taasina ma suurtageli doonto inta aan noolnahay, ayuu yidhi Muuse Cabdi Caraale oo sheegtay inuu yahay gudoomiyaha Al-Shabaab ee gobolka Banaadir. Ninkan ayaa sheegay in gaadiid iyo rasaas ay ku furteen weeraradii ay ka fuliyeen Muqdisho, isla markaana ay si buuxda ula wareegeen goobihii uu bartilmaameedkoodu ahaa. Wuxuu sheegay in weeraradaasi ay u qaybiyeen degmooyinka Kaxda, Daynile iyo Yaaqshiid, isla markaana ay socdeen saqdii dhexe ee habeenkii Talaadada ilaa waaberigii. weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa sababay in ay dhulka la simaan dhammaan dhismayaashii saldhigga degmada Kaxda, waxayna hore u sii kaxaysteen gaadiid dagaal oo yaalay saldhigga. afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdi Fitaax oo ka hadlay weeraradii Al-Shabaab ka geysteen gudaha Muqdisho ayaa shaaciyay geerida 2 qof, dhaawacyada 16 kale iyo waxyeelo uusan kala cadeyn nooceeda oo soo gaartay 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda. sidoo kale wuxuu qiray in 2 gaari ay Al-Shabaab kala baxeen saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. xaaladda magaalada caasimadda Muqdisho ayaa mid allow sahla iyadoo ay ka soconayaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. gobolada waqooyi doorashadoodu ayaa lagu qabanayaa magaalada caasimadda Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumaddiisu uma muuqdaan kuwa ka hortagaya dhagarta Al-Shabaab iyo sidoo kaleba kuwa ka feejigan weerarada kala duwan ee Al-Shabaab ka imaanaya. wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu shaaciyay in ay markaasi keenayaan qorshe lagula dagaalamo Al-Shabaab iyo sidoo kaleba qorshe lagu sugo amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Al-Shabaab waxa ay shaaciyeen go'aan ay ka gaartay ergada xildhibaanada iyo sidoo kaleba dadka kale. ninka Al-Shabaab ugu magacaaban gudoomiyaha gobolka Banaadir oo la yiraahdo Sheekh Muuse Cabdi Caraale ayaana shaaciyay qorshaha ay ka damacsan yihiin ergada sanadkan soo dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. ninkan ayaa sheegay in qorshaha Al-Shabaab uu yahay in aragti lagu dilo qof kasta oo erga noqday iyo xildhibaanada ay soo doorteen intaba, isagoo tilmaamay in muddo dheer ay dadka uga digayeen arrintan. xarakada waxaa ka go'an in qofkii erga noqdo uu taarget yahay naftiisana ay noo bannaan tahay, sababtoo ah waxay u codeeyeen in kitaabka Ilaahay la tuuro oo waxay taageereen dastuur iyo dimuqraadiyadda shisheeye wato. marka ciddii arrintaasi faraha la gasha annaga waa noo taarget, ayuu yidhi ninkan oo u hadlay Al-Shabaab. wuxuu ku celceliyay in ay isku si u beegsan doonaan kan wax doortay iyo kan la doortay. marar badan ayaan dadka ugu baaqnay in ay ka haraan howshaas, sidoo kale kuwa u ololeeya kuwa la dooranayo waa taargetkeenna, meel kastana waan ku beegsan doonaa, ayuu hadalkiisa ku sii daray. ma rabno dimuqraadiyad iyo qabiil. 60kii ayay nagu soo bilaabatay dimuqraadiyaddan, marxalado badan ayaan soo marnay, marka xalka ummadan wuxuu ku jiraa in kitaabka Ilaahay lagu maamulo, ayuu hadalkiisa ku sii daray Muuse Cabdi Caraale oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. ugu dambeyntiina ninkan ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay fahmaan waxa la isku haysto oo sida uu sheegay ah kitaabka ha lagu maamulo dalka oo iyagu ay qabaan oo iyo dawladda oo doonaysa in ay dastuur ku maamusho dalka, sida uu hadalkiisa u dhigay. Al-Shabaab waxa ay taarget gareysanaysaa markan cid walba oo ka mid noqonaysa baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kaleba ergada soo dooranaysa xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaankaas. lama oga xaalka sida uu noqon doono, balse waxa ay wacad ku mareen Al-Shabaab in ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxa ay sheegeen in weeraradaas ay bilow yihiin, isla markaana ay soo dusin doonaan ama ay soo qaadi doonaan weeraro kuwaasi ka daran. hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqayaa in ay feejignaan galaan oo ay feejignaan muujiyaan, isla markaana ka hortagaan weerar kasta oo ka yimaada dhanka iyo Al-Shabaab. dhanka iyo ergada ayaa sidoo kale loogu baaqayaa in ay iyaguna feejignaan muujiyaan maadaama amnigooda shaki fara badan uu ku jiro, isla markaana ay Al-Shabaab wacad ku martay in ay beegsan doonto cid walba oo erga ah oo weliba ay sheegtay in dhiigooda uu u bannaan yahay, isla markaana uu taarget bareera u yahay qofka wax dooranaya iyo sidoo kaleba qofka la dooranaya intaba. dowladda uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
ayaa iminka waxay doonaysaa in dalka dib ugu soo laabato taladiisa iyadoo ku fashilantay dagaalka lagula jiro al-shabaab. waxa ay badi dadka arrintan ku macneynayaan riyo maalmeed aan toosi doonin, balse waa la arki doonaa ayay leeyihiin dadka taxliiliya siyaasadda qaabka ee arrintu isku beddesho.